السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا channel كيغا بليس هدان نقول عصب تاي سبسكرايب سار فيديو هدا كيشنا لايك قرأ شير قرأ ادي ادوا امها سنتين سو دوادا اصحابي مانتا محايني هايا شيكا مانتا وحايني هايا قصة ادي ادو حنون بدن نمبر 1 هورتا ugu horeyn asxaabteeda qaaliga ayaan u mahad celinayaa mar walba kumitiyada qurux badan ii soo qoro mar walba fideogayga share gareeyo like gareeyo aad iyo aad baan u mahadsantiin ayaan leeyahay sidoo kalena fikradaada igu soo qor dhanka comment iyo waxa jeceshahay inaad channelkayga ka dhex aragtid ama aan soo geliyo channelkayga badanaa waxaan uga waramaa qisooyinka u badan waxaan uga waramo ama aan uga hadlo ama targetkeenu yahay inaan ka hadalno sidoo kale waxaan soo geliyaa short films oo iska wacyigelin short films wacyigelin ah ama wax u sheega dadka sidoo kale waxaan soo geliyaa cuntooyinka fudfudud cunto karin anigu channelkayga ma ahan laakiin cuntooyinka fudfudud ayaan soo geliyaa asxaabteeda qaaliga magacaygana waxaa la dhahaa cutiya channelka iga daawanaysiina waa cutiya intaas haddaan kasoo gudbo ama sharaxaadda aan kasoo gudbo maanta waxaan inahayaa qiso aad iyo aad u xanuun badan oo ay la soo wadaagtay gabar walaashaya ama dadka ku xiran cutiya channel waxayna igala soo wadaagtay dhanka Facebook sidoo kale adigu waa ila soo wadaagi kartaa sidoo kale adigu waa ila soo wadaagi kartaa qisadaada waxaad igala soo wadaagi kartaa Instagram-kayga insha Allah hoos inii soo dhigi doono iyo Facebook-gayga aad iyo aad baan u mahadsantiin asxaabteeda qaaliga qisadeena maanta waxay ku bilaabanaysaa qisadan waa qiso aad iyo aad u xanuun badan oo macno weyn xambaarsan waxaan kaa codsanayaa inaad dhamaysatid insha Allah fikradaada wixii ahna aad kasoo dhiibatid ama oraahdaada thank you waxay ku bilaabanaysaa sida tan waxaan ahay gabar Soomaaliyeed waxaan jaamacad u aaday dalka dibadiisa ama wadankii hooyo meel ka baxsan ayaan jaamacad u aaday muddo markaan dhiganayay jaamacadii waxaan isbaranay wiil aan ahayn waxaan isbaranay wiil aan isku galaas ahayn muddo markaa isnaqaanay wiilkii asxaab aan ahayn muddana aan isla soconay ayuu wuxuu ii soo bandhigtay jacaylka ayaan ka aqbalay muddo markaan isjeclay sidoo kale anigana xaggayga aan jacayl xadaaf u qaaday maadaama uu ahaa shakhsi aad u wanaagsan markaas sidaan ku bartay oo aad iyo aad ii tixgeliyo mar walbana ii qiimeeyo wax kastoo aan uga soo baahdana xaggiisa aan ka helo wiilkii markaan muddo aan jacayl wada wadnay oo aan muddo jacaylkayga la faguraynay oo muddo aan qaadaa dhigaynay ayaan waxaan go-aan ku gaarnay inaan isguursano wuxuu ii soo bandhigtay guur wuxuu igu yiri waxaan rabaa inaad noqotid marwadeyda xalaasha waxaan rabaa inaan hoy wada yegleeno waan ka aqbalay markaan ka aqbalay guurkii ayuu wuxuu ii sheegay inuusan maanta awoodinin inuu iga doono familkayga ama hooyada i weydiisto ama aabbaha i weydiisto wax qarashaana uusan haysanin uuna yahay wiil ardaya oo familkoodu micnaha aysan maanta ama reer u dhisi karin ama maxaa la dhihi jiray aysan micnaha waxba u awoodin inay ka bixiyaan sidoo kalena sidaan u jeeday anigu oo markaas aan garanayo qof aan garanayo uu ahaa uu yahay wiil arday ah oo wax shaqaana hayninin familkiisuna ay ka bixiyaan jaamacadda wuxuu igu yiri walaalay kaama maarmo sinaba ha yaraatee kaama maarmo mana awoodo hadda inaan ku guursado laakiin maalintan jaamacadda dhameeyo oo aan shaqo helo oo ay noloshaydu ii toosnaato insha Allah waxaan kaa ballan qaadayaa inaan familkaaga kaa doono haddana waxaan doonayaa inaan isku guursano guur qarsoodi ah ama sidaa u taqaanin guur qudbi sira ah arrinkii ayadoo aad iyo aad iigu culus tahay ayaan waxaan ku yiri waan kasoo fakarayaa fikir dheer ka bacdi waxaan soo go-aansaday maadaama aniguna aanan ka maarmin wiilkaas inaan isguursano aanu isku aroosno guurku iisoo bandhigtay oo ahaa inaanan familkayga iyo familkiisa iyo asxaabtayda midna aanan u sheegin guurkeena oo aan qarsoodi isku guursano sidii ayaan ka aqbalay sidii ayaan isku guursanay muddo markaan isqabnay oo aan farxad iyo reereen wada qaadanay ay khiyaali ah markaas ahayd runtii oo maxaa la dhihi jiray ii sheeg wiilkaasna uu micnaha guurkaas uu isoo bandhigtay sidaan u arkayay ay tahay guur khiyaano ah muddo markaan isqabnay wuxuu bilaabay wiilkii inuusan taleefanka iga qabanin
inuu markasta taleefonka igu damiyo. mar walba ayaan wacayay, mar walba uu igu daminayay taleefonkiisa. waa mar igu daminayay ahayd iyo mar uusan iga qabanaynin. waxay la soo gudboonaatay arrin aad iyo aad u murugo badan. noloshaydii waan faraxsanaa, jaamacaddii waa ii dhammaatay, shaqo ayaan watay, aad iyo aad ayaan u faraxsanaa. familkayga waqtiga aan jaaniska leeyahay waxaan la qaadan jiray farxad aad u tiro badan, anoo erayo u isticmaali jiray hooyo waa inay imaan doonaa, anigoo inu ku imaanaya dalxiis iyo farxad. waxay sheekadoodu sidaas ahaataba wiilkii arrintayda saas u galay. wuxuu bilaabay inuusan taleefonka iga qabanin, wuxuu bilaabay inuu ii gooyo, wuxuu bilaabay inuusan isoo wicin, markaan soo wacan oo taleefonka igu damiyo. sidaas waxay sheekadaydii ahaataba anigii waxaan ku xirmay qol mugdiya oo albaabkiisa aan la iga furaynin. waxaan muddo sidaas ahaadaba oo muddo sidaas aan u murugaysnaadaba waxaan go-aansaday inaan bal raadiyo. asxaabtiisii ayaan ka raadiyey, ayaguna waxay ugu dhaheen sidaas oo kale taleefon nagama qabanayo, nalamana hadlayo. waxaa la ii sheegay oo asxaabtiisii qaar ka mida ii sheegeen inuu la sheekaysto gabdho kale, inuu la baashaalo gabdho kale, inuu noloshiisii iyo farxaddu isiinayo u wareejiyo gabdho kale. taleefoonkii wuxuusan iga qabininba markii dambe wuu dansaday. markii aan waca waxaa laigu dhahayaa taleefonka garacda wuu dansan yahay, meeshii aan ku aqaanay ma joogo, meelaan u raadiya ma garanayo. asxaabtiisii waxay igu dhaheen meelaan u raadina anaga laftarkeena ma naqaano. wiilkii sidaas ayaan ku waayay. waxaa igu xiran meher xaqdarra ah. gabadh maihi, familkaygana waxay ii haystaan inaan gabadhoodii oo shaqo ugu maqan ahay. jaamacad baan ka aaday, kabacdii markii jaamacadda ii dhammaatay waxaan u sheegay aan shaqo helay, inaan faraxsanahay. halkaas ayaan hooyada iyo aabbaha waqtigooda ku wada qaadan jiray iyo familkayga inta kale. waxaan murugo aad u daran ayaa isoo food saartay. waxaan go-aansaday inaan meesha isaga tago. waxaan go-aansaday inaan isaga kicintamo dhulkii hooyo, inaan bal farxad ka helo, amaan jawi degan ka helo, amaan jawi ka gadisan kan aan hadda ku jiro ayaan go-aansaday. waan kicitimay waxaan ku laabtay dhulkii hooyo. waxay soo dhaweeyey hooyada iyo aabbahay oo ii maleeya gabadhoodii shalay ay ku ogaayeen. wejiga waan ka qoslayaa, waan ka dhoola caddaynayaa, laakiin wax iiga hooseeyaa ma jiraan. waxaan aad iyo aad u dareemayaa xanuun aad u tiro badan oo keligay aan ku noolahay. markii hore waan faraxsanaa, aan guursanayay, maantana waan murugaysanahay, meelaan u raadiya ma garanayo. waxay isoo dhaweeyeen ayagoo ku faraxsan noloshayda aan ku jiro, ayagoo u maleeya inaan faraxsanahay, laakiin wax farxada aana haysanin. muddo markaan hooyo iyo aabba la noolaa ay igu leeyihiin hooyo, waxay u maleeyaan micnaha inaan soo fasax qaatay oo aan shaqadayda kasoo fasax qaatay, laakiin anigu ma soo fasax qaadan. waxaa igu dhacday qisadaas aadka u xanuunka badan oo cid iiga warqabtaa aysa jirinin. qofkii ila qaadan lahaa na waa qofka nolosheeda sidaa u galay. hooyada iyo aabbahay markaan la joogay muddo waxay go-aansadeen ama waxaa isoo doontay nin. hooyada iyo aabbahay waxay go-aan ku gaareen inay isiiyaan ninkaas. nin wanaagsan ayuu ahaa oo xoolona haysto, maalna haysto. wuxuu iga bixiyey maal badan, aniguna uma sheeginin waxaan ku suganahay. wuxuu iga bixiyey maal badan, wuxuu ii dhigay guri qurxoon, wuxuu ii guursaday guur aad iyo aad u qurux badan. gurigii ayaa la ii gelbiyey. waxaan tegay anoo la ii haysto inaan gabar ahay. wuxuu ii aroosay inaan gabar ahay. hameenkii ugu horreysay markaan kulannay wuxuu ogaaday inaana gabar ahayn. wuu i weydiiyey, wuxuu igu dhahay maxaad ii khiyaantay adoon gabar ahayn oo iigu tiri gabar baan ahay. waxaan uga sheekeeyey qisadaydii, waxaan uga dhacay waxaan ku suganahay. waxaan ku idhi ii ceeb astur. wuu iga diiday, wuuna ii aamini waayey. khilaaf dheer ka bacdi ninkii waa i furay. maanta sheekadayda waxaan idinla soo wadaagayaa asxaabtayda qaaliga. ma ahan inaa ina leeyahay ila taliya, ma ahan inaa ina leeyahay maxaan sameeyaa,
laakiin waxaan maanta inila soo wadaagay qisadaydan oo aan ugu soo gudbiyay walaashay cutiya inay sii gudbiso oo ay ka feejignaadaan gabdhaha ila midka ah inaysan qisadaan oo kale ku dhicinin, inay ka feejignaadaan ninku yidhi aan ku qudbo saraysto, inay ka feejignaadaan ninku yiraaday familkaaga uma tegi karo, waayo waxa uga dambeeya iyo waxa ka dambeeya iyo wuxuu samayn doono midna ma ogid. beri ka maalin arrintaan kale hadday kugu dhacdo walaale xanuun tiro badan ayaa la kulmaysaa. beriis waxaan kaa codsanayaa inaad guurkaaga ogeysiisatid asxaabtaada, familkaaga, markay walaalaha kulligood. waxaad guursataa faqiir kasta ha ahaado, qani kasta ha ahaado, laakiin ninku sharfay oo kaasoo doonay waalidkaa, oo ku soo sharfay oo ku weydiistay ehelkaaga, ninku ogeysiiyey asxaabtaada guurso. laakiin ha isku guursanin, hana aaminin ninku yidhi keligay i qarso. qisadayda maanta intaasay ku kooban tahay. aniga maanta tan way igu dhacday maanta, laakiin waxaan kugula talinayaa walaashayda Soomaaliyadaayay waxaan kugula talinayaa inaad ka feejignaatid wiilasha qaarkood oo xunxun, oo daminada aadka u xanuunka badan, u qodxaha badan u dhiga gabdhaha walaalahooda. sidoo kale waxaan la talinayaa wiilasha walaalahaya, gabar walaashaaya haddii aad guur usoo bandhigatid oo ay kaa aqbasho, ha ugu gudin abaalkeeda, ha ka dhigin inaad khiyaanto, inaad nolosheeda ku ciyaarto, inaad gabarnimadeeda dhaafsiisato, kabacdina aad ka disantid taleefonka. guurka qarsoodiga ah anoo og inuu baadil yahay ayaan u bareeray, laakiin maanta abaalkiisii ayaan hayaa. waan kula talinayaa, waxaan ku leeyahay ka feejignow, waxaan ku leeyahay markay ugu dhawaato ugu sokayso qof asaga ah familkiisa taqaanid iyo meelaa u raacdid guurso. waxaan halkaa kusoo gabagabeynayaa qisadayda. maanta xanuun badan ayaan ku suganahay sababtoo ah meher hore ayaa igu xiran, kii kale waa i furay. noloshayda waa iska fahmi kartaa, waxaan ku suganahay waa dareemi kartaa. laakiin maanta naftayda waxaan qisadan kuula soo wadaagay inaad gabadha iga dambaysa ama gabadha hadda ka bacdi rabta inay guursato ama ay guri yagleesho ama ay mustaqbal sugaysa inay ka feejignaato. waayo aniga tan mar dambe iguma dhacayso, tan way igu dhacday laakiin mar dambe iguma dhacayso. aad iyo aad baa u mahadsantihiin asxaabtayda qaaliga oo ku xiran Cutiya channel. halkaas qisadeedna gabadha walaashayna kusoo gabagabaysay, sida iigu soo qortay ayaan idinku akhriyay. waxaan isku dayay inaan dusha ka qabto wixii abaayo aan khalday ka raali noqo, intii kalena wixii aan saxayna waxaan u malaynayaa inay say tahay aan u saxay. asxaabtayda qaaligaa soo dhadhawaada meel kasta ay joogtiin. qisadeena maanta intaas inoogu eg tahay. waxaan gabadha walaashay leeyahay abaayo macaan xanuunkaa dareemaysid, anaguna waan kula dareemaynaa. insha allahna waxaa ka feejignaataa adiga walaalahaaba tan iyo mid lamida mar dambe inuu ku dhacdo. aad iyo aad baa u mahadsantihiin videoga daawashadiisa, waa in ka mahad celinayaa. sidoo kale haddii aad channelkayga ku cusub tahay please subscribe saar, like garee, share garee. aad iyo aad baa u mahadsantihiin. intaan video lamida ku kulmi doono waxayna ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.